فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. calaamaad almunaafiq calaamaadka munaafiqa lagu yaqaano. qofka munaafiqa calaamaadkiisa waa xadiidkii 26aad can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi aayatulmunaafiqi qofka munaafiqa ah aayaddiisu calaamaadka lagu yaqaano 3 idaa xadatha markuu warramayuu kuu sheekaynaya kadaba wuu been sheegaa waidaa wacada haddii lala ballamana akhlafa wuu guub yeelaayo wuu ka baxaa ballantii wuu buriyaa waida tumina haddii la aaminana khaana wuu khiyaanayaa muttafaqun calayhi. khaa'innimaa lagu yaqaanaa. qofka munaafiqaa 3 calaamo buu leeyahay. riwaayadaha qaarkood 4 bay leeyihiin. xataa hadduu soomo ee uu salaado ee uu sheegto inuu muslim yahay waa munaafiq khaalis ah oo baraxla ilaa uu ka tegaayo. qayb ka mida haddii lagaa helo qayb nifaaqnimada ka mid aha kugu jirta ilaa aad ka tegayso. saa darteed calaamaadka iska ilaaliya, aad baa loo badan yahay. sheekada maanta aan ku sheekaynayna waa been oo waa qiila waqaala. ballana aan fulina goormee noogu dambaysay. qof kastana khaa'in buu maanta noqday. diintii baa la khiyaanay, bani aadamkii baa la khiyaanay, ilaahay baa loo moodaa in la khiyaanayo. saa darteed bay ummaddii oo dhan waxay u bateen nifaaqnimo iyo munaafiqnimo. aad aan isaga ilaalino. hal qofood oo maanta $100 aad ku aamini kartaa adduunka ma joogo. haddii la helo qalla maa yuujad. saa darteed haddaad maanta 6 saac u dhiibata $100 oo aad ugu soo noqoto casirkaa dhahda keen wuxugula igu soo laabo maxay tahay? waa dhibaato aad iyo aad markaa u weyn. meesha ha inoo joogto. wabillaahi towfiiq. wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.